هادي هذا يمكن أمريكا جودا عرفتين إلى الله حد وسطان دوري لكن أنا حالنا عندي وعقو قصبان نحكي كذا ورا عدوا ها وين كلام قال مقايسة أما قبل قال حلو كرو ماي أوكي مود قال سعر مود قال waxa ay ii reebata mala wallahi xoog iigu shaqeey haddaad iiga shaqeyna godaa ku uree ikay nabad ma uga shaqaysanaysid وين saacaddaana ani gurigayga joogin cabsi aa cabsanaayo ani أوكي وين cabsida aan ka cabsanaa waxaa waaye ani markii askar guri lagugu dhex keena baa waa lagaa garyeesha ilma yarna ay haysatid taleefanka kaama qabanaysa miyaa daahir oo gabadhii قدك مجد ha dhib ma laha أوكي maxkamaddu waxay go'aamisay qodobo soo socda maxkamaddu waxay dib u dhigtay kiiska si ay u dhegaysato dhinaca kale codka loo duubo sagal waxaa laga rabaa 48 saac gudahood inay maxkamadda ku timaado ay soo garbaxdo oo la dhegaysto cabashada iyo dhibka iyadoo xaggeeda ay qabto iyo eedaynta loo jeediyey waxay uga jawaabayso maxkamaddu waxay soo jeedinaysaa gabadhan reerka ay ka dhalatay ee habargidir gabdhaha iyo wiilasha habargidir inay shir gooni la galaan ay hubiyaan financialkeeda dhaqaalaheeda iyo ammaankeeduba si qabiilnimo ah maxkamaddu waxay soo jeedinaysaa inaan asaga loo tubaraaci karin wax laga sheegi karin ee la xukumi karin la eeday karin ilaa ma aan anagu iska maqalno oo muddada loo qabtay 48 saacadood aniga iyo isaga as maqalno ka hor qof qol ka soo furo karta iyo qof caayi karta qabiilnimo iyo qof weerari karta ma jirto halkaas weyn deeq ها لكن أفرتي سريت هوجا وحوا ضدك حلي شعبك ما يعرف ساعه معقول ما marka gabadhaas raaca foos cabdiwaash iyo kunsooy iyo ilaahay kuma soo diiday kundiyaaq iyo kulligiin iyo axmed iyo dadka raaca gabadhu haddii financial problem haysto meesha habargii dad maal qabeenaad tiktoka joogo gabadha dhaqaale ahaan hala caawiyo hala garab istaago waxa yartana ha loo qabto أنا سعودي عادي نقانابو يا سعودي عادي أسكن نقانا ما فهمتين تو عاسكم تقانين هذا وين اوكي سعودي haddii ay rabto in shaqadeeda laga kabo xitaa oy dhaqaale u baahan tahay markii dacwadan la baaro oo kiiskaasi meel u fuul wixii ka dambeeya ay imaan kartaa maxkamaddu inta ka horeysa gabadhaasna waa qabiil waa sore adna naag habargiidaa tahay habargiirtaad u baahan tahay inay ku hiliyaan kuwa nairobi kula joogo kuwa qurbaha joogo haddii financial problemkas laakiin maxkamaddu kuma fasaxaysa inaad fiidiyo soo duubto inaad sagal wax ka sheegto in dad aawata ay sagal caayaan ku xadgudbaan ilaa dacwadda dhinaceeda la dhegaysanayo أي قبلي كلاتو كل شيء أفضوفك ما لش يجاي مي أيقنا gabdhaha kale yaa waaya taasa artu muhiim gabdhaha kale yihiin gabar mid ogaadeen waay hay magaceed way soo dirtaa nambarkeeda waadu maaldaa weligeed lambarkee maarkin muriga maal lambarka ma ka qoran weligeed ayadee saaxiibiyiin ayadaa ku bartay gabadha tiktoka ma qadray kusoo gashaa qadra comedy sugan soo fiiriya yaa waaye qadarka mandhi maahan ناقدر kuma dhawaa reecabtii ha qadra comedy soo qabaa lagu dhahoyaa no comedy ku dhigla ubaxay kusoo tuuranaysaa telefoona ku hadlaya ka soo laabta axmed dajed axmed aa iska mashquulsanay dhimalaan halkaas soo qabo أي أنا أفضل تاقبا واحد ما قريب qadra ubax soo tuur هل مريد جيسو أحمد رشيد حاس كيسا يقبل كلاتو واحد وقاعدين بدنا وايساق فاتي axmed rashiid haddii xaaskiisa haddaa la xalanaya gawa weela joogta gabadhuu furay waayaa miduu furay waaye kala tageen
هاي السلام markii guriga lagu soo xiranayo gabadhii la joogto waa qadar welcome in adeer amay hawsha dhamay adigu wixii Axmed Rashid iyo ogaadeen iyo hadii waxaas ay ku wareegsanayaan surre iyo waxaas waxaan ka adeer meelaha kala aado maxaa dhacay warisi maxaa dhacayna sagal iyo Saudi maxaa ku dhacay hooshas adaa lagu daayay bal anna isoo waxa dhayay ma yidhi dadkanada isla shaqayn jirnay haayeen waa tiimas lahaan jirnay waa kala go'oonay tiimka Saudi ayada iyo maxaa lahaay sagal isku tiim ahaayeen gadaal is dagaaleen miyaa waraa aad ogtahay in adeeray suuqaad ka ogtahay oo ishaada ku aragtay ma hadda anaka weydiinaysaa dadka qof aan ogeyn ma lahayn wax ii gilad kaalo cafki waaya badhowla iska dhigaysaa qadaroy كان هذا أفرق عندك قلي هذا بسم الله الرحمن الرحيم سعودية متى كلام حاوى ولا اللي معاني عبسي ذا الشيء سيد عبسي إله ومضني بلاد اللي عبسي نيرو مشوكي ناقتني هذه أيضا دولا اللي معاني نيرو وكذا سمتين نيرو حقوق على وجه قدن دولة اللي هو محاشر ولا لي ناقي لها كنت حضر الله نديرات هاي يا كمان إحنا قرالك كوسا قرنا آخر السيا قرك قوسه بسم الله وسير كذا يدار على سوق ومغلسة التوسط horta waan aragnaa xaaladaha hoos baan ka dhageysanay wasiirka diinta iyo ciqaabka maxkamadda sida daahir sheegay maxkamaddu maadaama labada gabdhood bay yihiin laba gabdhood oo irir Soomaaliya is haysta halkaana gabar ay kiisaskeeda iyo problemkeeda ay sheegatay gabadhii kale aan ogeyn sida uu sheegay maxkamaddu gabadhaas 48 saac muddo ah hala siiyo inay halkaan timaado ayana ay ka hadasho Soomaalida adeer daahiro ana walaalka mudgal haddii sayni wacta أنا وعكر برضو والله معنا هذا كان ودي جنا هذا اللي زي مايا ما كان صدق ما يسنسا الله ثاني واحد كان سوي waxaan ku sheegaya wallahi wabillahi oo talaa gaba surraa iyo gabar habar gidir oo cadaalad falaya haba yaraatay xitaa wax yar oo ay xama sameeyay habar gidir absolutely safiya cadaalad aan ka shaqeynaa wax sax ah oo cadaalad ka shaqeynaa gabadhiga horti maado gabadhiga horti maarin waxaan rabaa inay la kala saaro daahiro waxa fiican markii maxkamadda tahay iyo markii luuqa tahay waa inay different waay moogtay markii maxkamadda la joogo maxkamaddu waa cadaalad qadarana hala dhageysto gabadha kale waxay sheegtay hala fiiriyo Sacuudina waa dhageysanay labada gabdhood la hadaltii qadana qaladkeeda ha loo sheego hadda meeshana waxa waa cadaaladna waa la rabaayo gabadhiina iyadu waxbay tabanaysaa moogtay iyada naftirkeeda maxaa ku geeyay maxaa ka jira waa in qofka la sheegta gabadha laakiin arin waxa jirto gabadhan waa community waa Soomaalidii oo dhanba iyada la'aanteed filku waa socon waaye marka ilaa Soomaaliya laga soo dalbaday gabadhan taasas ogtaa daahiro arrintu fiiri arrintu waa arrin business ah ya mud ku jiray laba qof oo wada shaqeyn jirtay mudga galle Umar mudkiisa loo gamay laba qof oo wada shaqeyn jirtay oo isku asxaab ahaa wax ka sadex mari kara waxbay wada lahaayeen maxkamaddu arrinkiisaskan waa ka duwan yahay kuwii hore ay xalli jirtay family is haysta gabar ilma ka cabanaysa laakiin tan waa shaqo waana wax qabiil salka la gali doonto marka arrinta ayada ah waxa laga yaabaa dadkaas dad asxaab oo si wada shaqeysan kara inay noqdaan in wuxuu gabdho ay yihiin walaalo ah wax badan soo wada jabay ninkan meesha fadhiyo maxkamadda ugu weyn sida ogtihiin oo boqorka asaguna irir Soomaaliya baa loo yaqaanaa marka arrinta ayada mar kastaba waxaan fiirinaynaa qofkii kale bal wuxuu ku hadlo qof hadaad aragtid